haddaba eedaynta wariye Haruun Macruuf ee hay'adda nabad sugidda bilow ayay u tahay arag maqal afkana xiro warbixintan waxaa nooga diyaariyay wariyaheena Axmed Axmed. labadii bishan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa wariye Haruun Macruuf ku eedeysay fal ka baxsan saxaafadda iyo xiriir khatar ku ah amniga qaranka balse arrinta dadka badan ay la yaabeen ayaa ah in nisa ay fariintaas mariso baraha bulshada. Soomaaliya waa dal dimuqraadi ah oo sharci lagu hago warbaahinta leh dalalka aanay maamulin kaligii taliyaashuna saxafiyiinta uguma hanjabaan baraha bulshada sirdoonkana xogaha xasaasiga ah kuma gudbiyo saxaafadda bulshada. dad badan oo Soomaaliyeed oo ku jiraan saxafiyiin caan ah siyaasiyiin xeel dalka ka soo qabtay iyo qaybaha bulshada ayaa aad uga falceliyay saameynta ka dhalan karta hadalkii ay soo saartay hay'adda nabad sugidda Soomaaliya. inkastoo faahfaahin dheeri aysan ka bixin hay'adda nisa waxa ay ku eedeynayso wariye Haruun Macruuf oo ka shaqeeya VOAda ayaa kulmiye waxa ay sheegaysaa in saxafigaasi uu muddooyinkanba waday baaris la xiriirta qaabkii ay u dhaceen qaraxyo waaweyn oo ka dhacay Muqdisho gaar ahaan kii lagu dilay duqii Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Yariisow oo macluumaad dheeri ah uu ka diyaariyay. waa qayb ka mid ah shaqada saxafiga inuu helo xog sugan oo nolosha dadka la xiriirta kadibna uu la wadaago bulshadiisa sida uu sheegayo Cabdalla Muumin oo ah xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee SJS. sideedaba sidaad ogtahay wariyaashu ma ahan sirdoon umana shaqeeyaan sida sirdoonka wariyaashu waxay ka shaqeeyaan in dadku xogta isdhaafsadaan wariyaashu waxay ka shaqeeyaan iyo warbaahinta guud ahaanba in dadku ay helaan xog sugan mar walbaba si ay go'aan ugu qaataan arrimaha saameynaya noloshooda. sidaa darteed wariyaashu waxay waqtiga ugu badan ku bixiyaan sidii ay xog u heli lahaayeen xogtaas markay ay helaan dib waxay ugu celiyaan bulshada. marka way ka duwan tahay eedeymo noocan oo kale ah iyo qaabka loo soo jeedinay aad bay iyo shaqada wariyaashu aad bay u kala duwan yihiin. haddii ay tahay arrintu mid ku saabsan shaqada suxufiyiinta ee ah in ay dabagal sameeyaan baaritaan sameeyaan xog soo bandhigaan kadibna xogta bulshada ay la wadaagaan taas kuma khaldana wariyuhu waana shaqadiisa waxaana aaminsanahay inay tahay inuu sii wado si ay bulshada Soomaaliyeed waxyaabaha saameynaya noloshooda go'aan uga qaataan. haddii hay'adda nabad sugidda ay hesho xogta faldambiyeedka dhana amniga qaranka waa shaqada hay'adde waa inay wargeliso booliiska si uu baaritaan ugu sameeyo kadibna ay xeer ilaalintu kiis ku soo oogto cidda dembiga lagu tuhmay. Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo hore hay'adda nabad sugidda Soomaaliya taliye ku xogeen ka soo noqday ayaa qaba in loo baahan yahay in hay'adda aanay noqon mid sharciga ka weyn isla markaana ay hay'ad inay soo marto hay'adaha kale ee dawladda. dawladda Soomaaliya waxaa laga rabaa inaysan ahayn hay'ad oo qanigeyd ah yani hay'ad awoodda ka baxsan oo wax yarta sameeyay inaysan noqonin. inta badan hay'adaha nabad sugiddu waxay tahay inay hoos joogaan oo ku hoos qarsayeen hay'adaha kale inay booliiska soo dhex maraan oo booliisku waxyaabo la booliiska ay booliisku hadlo military uu hadlo xiraalintu hadasho siyaasiyiintu hadlaan mise ma baahan bay inay hadasho mise ma lahan cod mise ficil ay leedahay wax qabasho ay leedahay wax ogaasho ay leedahay wax xaqiijin ay leedahay wax kaddigid ay leedahay intaas oo dhan waxay soo martaysaa hay'adaha dawladda maana ayadu meel Allah soo istaagto website-kan wax kuma soo qorto hadda fiiro hay'adaha adduunka wadanka rabta noqon wadamada dariska Ethiopia noqon Kenya noqon iyo kuwa weyn caalamiga marka fiiriso website-kooda ku arkamaysa wax siyaasada oo ama qatar amniya ama qatar ama dhaqaale ah ama qatar siyaasadeed oo ku soo qoraan marka waa xanuun qarka xogaa yar inay tahay fudayd badan ku jira kabaaraan deglaan iyo taxadir la'aan badan ka muuqata. Abaan Cusmaan Cabdullaahi Guure maarayii hore tiyaatarka qaranka isla markaana muddo fog ku soo jiray warbaahinta ayaa qabay in arrintan ay tahay digniin loo dirayo warbaahinta oo dhan isla markaana waxa uu sheegay in si gaar ah loogu dan leeyahay warbaahinta gudaha. أحمد waxaan aaminsanahay hay'adda nabad sugidda u jeedisay Haruun Macruuf ma aaminsani hadday aad sax tahay xataa mid loo maray dariiqii saxda ahay hay'adda nabad sugidda maxkamad ma ahan Twitterkeeduna ma ahan meel hadii alla ku rooyay dadka lagu eedeeyo waxaan isleeyahay baroorta orgiga ka weyn waxa loo socdaa Haruun ma ahan saxaafadda dhan inay tahay ayaan aaminsanahay sababtoo ah habdhaqankaas ma ahan hadii alla ku rooyay mid hay'ad qaran lagu yaqaan waxaan aaminsanahay madaxda hay'addu saxaafadda aad ayay u taqaanaa oo hadda ma isliya aqoon la'aan saxaafadeeda ayaa haysa marka Haruunna waxaan aaminsanahay waxa lagu haystaa inay tahay sembir xogaha uu soo bandhigo oo dadka ka daahsoon taasna waa shaqada saxaafiga marka saxaafadda dhan inay tahay waxa loo socdo oo aakhirka arrintu ay u socoto arag maqal afkana xiro sidaas ayaan ka aaminsanahay arrintaas.
dee haddiiba loo hanjabayo haddii alla kuu roon yahay haaruun oo aan dalka joogin ka gudaha wax tilaabaha u qaadi karaa haba yaraatee ma jirto marka waa weysha gowrac dibigu ha ku qusqaatee sidaas ayaan ka aaminsanahay waxa loo socdaana waa saxaafadda dhan haaruun ma warbixintan waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkii yuusuf garaad cumar ee ahaa in haddii hay'adda sirdoonku ay dawladda ka adeejisay inay u cagajuglayso wariye jooga Washington oo aad nooga fog una shaqeeya idaacadda ay leedahay dawladda Maraykanku waa maxay damaanadda iyo xurriyadda ay sheegi karto ee ay heestaan wariyaasha dalka gudihiisa jooga haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iideyso like saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa mahadsanid